cutubka tobnaad ururinta xogta ku saabsan dadka la la'yahay. Ururinta liiska kuwa la la'yahay ama loo malaynayo inay dhinteen iyo tilmaamahooda faahfaahsan ayaa ah tillaabo muhiim ah maxaa yeelay marka la barbar dhigayo macluumaadka ku saabsan meydadka waxay keeni kartaa in wax badan la aqoonsado. Tani waa sababta xarumaha caawinta qoyska ay tahay in si degdeg ah looga sameeyo heer deegaan dadna loo magacaabo inay soo ururiyaan liiska dadka la la'yahay. Waajibaadkooda sidoo kale waxaa ka mid ah qabashada codsiyada baafinta, midaynta macluumaadka, iyo la socodsiinta bulshada guud. Si looga fogaado nuqullo isku mid ah, magacyada waa in loo diiwaan geliyaa hab isku dubaridan oo habaysan, iyo sumado gaar ah oo lagu aqoonsanayo in loo qoondeeyo qof kasta oo la la'yahay. Waxaa jira habab lagu taliyey oo lagu ururinayo macluumaadka gaarka ah ee ku saabsan qof kasta oo la la'yahay, ha ahaato helitaanka oggolaanshaha qoran ee saaxiibada iyo qoysaska, ama in si xushmad leh loo sameeyo waraysiyo jawaabahana si la akhrin karo loogu diiwaan geliyo foomka macluumaadka qofka la la'yahay ilaa laga gaaro in laga wada hadlo arrinta muhiimka ah ee qarsoonida. Macluumaadka la ururiyey waxaa lagu kaydin karaa meel dhexe oo kaydka elektarooniga ah iyadoo uu hagayo khabiir ku takhasusay maaraynta xogta. Tani waxay u sahlaysaa khubarada forensiga inay raadiyaan waxyaabaha ay isaga mid yihiin ee tilmaamaya inay la mid yihiin qof nool ama qof dhintay. Ugu dambayn, in xogta loo maareeyo si iswaafaqsan oo habaysan ayaa sare u qaadi karta fursadaha aqoonsi ee lagu guulaysto.